Hogaamiyayaasha dalalka ugu dhaqaalaha weyn ee ku bahoobay G20 ayaa mar kale xaqiijiyay go'aankooda ah in gargaar bani'aadamnimo la gaadhsiiyo dadka reer Afghanistan sida lagaga dhawaaqay aqalka cad ee lagu arrimiyo dalka Mareykanka. Wadamadan waxa ay ku heshiiyeen in sida ugu dhaqsiyaha badan gargaar lagu gaarsiiyo Afghanistan iyagoo loo sii marinayo ururo caalami ah oo madax banaan si kor loogu qaado xuquuqda aasaasiga ah ee dhammaan dadka reer Afghanistan oo ay ku jiraan haweenka, gabdhaha iyo kooxaha laga tirada badan yahay ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay aqalka cad kadib shir madaxeedka G20. Mareykanka waxa ka go'an inuu si dhow ula shaqeeyo beesha caalamka una adeegsado hab diblomaasiyadeed, bini'aadamnimo iyo dhaqaale si wax looga qabto xaaladda Afghanistan loona taageero dadka Afghanistan ayaa lagu yiri warbixinta. Ku dhawaaqista ayaa imaanaysa iyadoo Afghanistan ay wajahayso dhibaato dhaqaale oo saameysay kalabar dadka dalkaasi ama qiyaastii 18 milyan oo qof. Dalka Afghanistan ayaa ah dal ay si xoog leh ku kabaysay kaalmo caalami ah 20 sano ee la soo dhaafay. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in 80% dhaqaalaha Afghanistan uu yahay mid aan rasmi ahayn iyadoo haweenku ay ka qaadanayaan door muhiim ah. Taliban ayaa ku guuldareysatay inay fuliso ballanqaadyadoodii ahaa inay ilaaliyaan xuquuqda haweenka, ayuu yiri madaxa qaramada midoobay isagoo ka codsaday taliyayaasha Afghanistan inay gutaan waajibaadka ka saaran xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ah.